aaminsan baa tiro habaari jiray markaan guursaday angaasay gabadhi 10 inan bay dhashay 3 gabdhood ma sha Allah 8 wiil iyo 2 gabdhood baan ay nool taasna waa taan ka hadlaya waxa weeyaan mesela marka aynu islaamnimo soo noqono iyo dadnimo mesela 5 qof oo gabooya ay baan munaasabadan igala soo qayb galay 5 qof oo gabooyaha ba masaajidka imka wan ku tukan salaadii ilaahay waxa kale uu yiri waxa weeyaan in man akramakum min inta Allah yatqaakum marka waxa weeyaan in la taxgaliyo waxa laga yaabaa marka mid hadal qowlkii ilaahay baynu bedela ama xeerkii ilaahay baynu raacin mid aan tukanin oo aan taqwada lahayn inuu ilaahay ninka waan ka wanaagsanay waxyaabo si dambi baa ku jiray latay mid kale bulshadeena bulshada reer waqooyiga anu aad baan u amaanaya ma aan ahayn anigu dadkii dibadda u baxay abroorka maray ama wadamada kala soo marmaray sanadkii 88kii ayaan halkan ka qaxay oo dibadba ilaa xamaran gaadhay ugu horeysay nin wadan iyo wadankii ku dhashay kuna barbaaray baan ahaa 1950kii baan ku dhashay magaalada Hargeysa wax ku bartay dhalinyarada waxaan ahaa in halka dhakhtarku lahaa in anigu kuma soo korin in magaranaysa dama qaarinta dadka arinta damaqeeda ku soo koraan ahaa iskuulada markaan dhiganayno oo ilmuhu yiraahdo war waa kan waa kii midgaan ka haday goornaxa war waxaan midgaanka la sheegay war waxaan sameeyay waa maxay war farsaal nixir meel bay ugu jirtay markii la midgaankii intii ay yaraam garaysa mararka qaar kood marsan mararka jir war waa midgaankii bay koodhan doonaan soo garmays waxyaabo waxbarashadii aan soo garmays waxa weeyeen bulshada reer waqooyiga waxaan baxay isteedkii baa xamar dhulka u qaxay anoo war dadkan reer waqooyiga waa maxay war dadkan maxay ahaayeen idin nacabi dadkan ida caayay xaqiraya waxaan soo arkay bulshada reer waqooyiga inay tahay bulshada Soomaalida ugu wanaagsan aniga oo aan magaranaysaa in si kale aan u xamleenin markan ilaa koonfur soo maray ilaa waqooyiga Itoobiya soo maray waxaan arkay dad inay ka dadnimo wanaagsan dad aan isku raacin dulmiga inay yihiin dad maalinkan maanta wanaagsan marka midban anigu ka digaya markaas muxuu yahay qoladii hore reer Israa'iil ee halaysnayd kuwii halaysnaa ayaa marka nabiyada rasuusha ay yimaadaan ee la yiraahdo warasnaamtani waxa la caabudaysan ka taga oo ilaahina ka baqda ay oran jireen war dadkan waa la eegay maanta waxa noo leeyimid ma waxaanu awoodeeyay ka soo gaarnay ayaanu maantuna ayr bedelaa إلا وجدنا أبانا تمرك بالشدة هذين نقطتنا وجدنا أبانا كله واي أنظر وحيلتها هي واحد أبون واحد إسلام نمذا يكترتو إيه ضد نمذا يكترتو إيه إن هرمر كترو إلا الرعاية في عنه بالشدة المربى لا يرقى في ترى ملكيه وقلة يكون عليه قارة أفريقيا مرة يوضح حولها أنت في أسفتها لكن إيدينا اللي فور أيها برلين كونفرنس لو قلنا مستحيل أفريقيا اللي يوضح حرودي سمعت فهمين ناس المانديلا أيام أنت كتليا كونفور أفريقيا وماشي يقول جميسي وحمد هاي بالشدة سيد لوقا بسده وانخوال بحنايمكا خير والريري أورنتري وابانك هيجي كان أنا ويلاد مقبحة وحس دسي حرية لوقا تانو قادني على واحد سوق بقبيلة إلى هاي الطريقة توصلنا هنا وابشي ضد ولا لا أو إسكو سنتيا أو إسكو اللقطة أو إسكو ليجا أو إسكو مذبح وإسكو عقيدة بيننا هاي إلى هاي أنت مقرأة ير من سنين عادة هرنا يعني السير بس هاي اللقطة هاي تيجي كورك سوق تسير أقول لي يا وسير كذا